gabadhan ordaysa aad u jeedin ninkana wuxuu rabaa inuu si xoog ku guursado kadib iyadoo meeshan buundada intay timaaday waxay u sheegaysaa haddii uu soo dhawaado in buundada iska tuuri doonto wuxuu bilaabaa inuu sheeko uga sheekeeyo isagoo raba si qabaqaba inuu ugu soo dhawaado laakiin nasiib darro iyada waatan ugu dambeyn go'aan ay qaadatay meeshii iska tuurtay xoogaa kadib mid ka raba webi buundada hoos maray inuu ku qabaysto wuxuu arkaa gabadhan iyo biyuhu wataan ugu dambeyn waa kanay uu soo bixiyay laakiin rafaad badan ka soo maray midkan isagoo gabadhii raadinayo wuxuu arkaa ninkan webiga ag taagan wuxuu weydiinaa inuu arkay gabadh dharka arooska wadato webigan ku dhex jirtay in kale laakiin isagoo intuu ka shakiyo been u sheegay isagoo ku dhahay ma arkin waxa sheegaysa kadib wuxuu ka codsanaa inuu gabadha la raadiyo markii uu ka diidana uu isaga tagaa isaguna markuu arka gabadhan inay suuxdinta ka soo kicin wuxuu go'aansanaa inuu gurigiisa u soo qaato xaaskiisa waxay weydiinay oo maanta saa u joogtay guriga miyaa ii keentay naag dhimatay laakiin isagu maadaama uu culeys sida hadal badan uu sii galayo guduhu u gudbaa intay ka daba timaaday haddana waxay weydiinay oo naagtan saaxiibta miyaa guriga miyaa keensatay wuxuu ku dhahaa isdejistaa u malaysay waxuma jiraan gabadhan webiga ka soo helay weliba iyadoo suuxsan waxaa jiray nin iyada raadinaya aniguna waxaan iga shakiyay dhibaatada gabadha soo gaartay inuu isaga u geystay isla markaas ay sheekaysanayeen midii suuxsaneed oo soo kacday midkii raba iyada inuu guursado oo raadinayo oo magaceeda ku qaylinaya labadan maqlaayaan kadib iyada waxay ku dhahaysaa isaga waayay ha u sheegin inaan meeshan joogo i qariya gurigooda intuu ku soo leexdo midkii wuxuu weydiinay adiga matido midka webiga joogay haa ku dhahaa waad saxan tahay ee ma helin miyaa qoftii aad raadinaysay waxa uu sheegaa inuu maanta dhan raadinaya laakiinsan uu helin nambarkiisa intuu siiyo wuxuu ka codsanaa inay soo wacaan haddii ay arkaan kadib midaan intay gabadhii u timaaday waxay ku dhahaysaa sheekadan ifaansiya ninkaas wuxuu noo sheegay inaad adigu xaaskiisa tahay waxay ku dhahaysaa beenuu idiin sheegay anigu xaaskiisa miihi wuxuu rabaa inuu si xoog igu guursado maalin kadib anagu waxaan ogaanaynaa arrin la qarqarinayo oo la yaab leh midaan oo ah ninkii gabadha badbaadiyay xaaskiisa waxay si qarsoodiyo ula socotaa iyadoo la qaba ninkan kale oo ah ninka beertooda ka shaqeeyo mar walbana waxay si qarsoodiyo ugu kulmaan beerta dhexdeeda halka uusan midkan waxba kala socon arrintan oo kaliya jawigiisa isaga raaxaysanayo midii oo badbaadiya intay u timaaday shaxan u keenay iyadoo u sheegaysa inuu abaalgud u yahay badbaadintii oo badbaadiyey wax yar kadib sheekadooda waxaa ka qasaya xaaskiisa waxay dhahaysaa midaan dharkayga maxay u soo gashatay isaga wuxuu ku dhahaa aniga ka codsaday inay dharkaaga gashato maadaama aysan haysan wax kale oo ay gashato isaguna oo shashaadkiisa sii karin kadib intay isbedeshay gabadha waxay u sheegay inay gurigan iska joogi karto waqti ay u baahato weyna isaga tegay kadib midaan keligeed si meesha u joogtay intay ku caajistay waxay go'aansanay inay banaanka soo warwareegto laakiin markii ay banaanka u soo baxday waxay arkay arrin ka yaabisa midkii beerta ka shaqeynaya oo dhudhuumanayo intaas keliya maahane markii ay soo dabaraacday waxay arkaysaa ninkii guriga daaqada ka galay maadaama ay ninkan keliya shaqaale ku ogeed waxay la yaaban tahay sababta uu guriga sida dhuumashada uu galayo isla markiiba midka inta u yimaado wuxuu ku dhahaa maxaa kugu dhacay meelaha maxaa u fiirinaysaa waxay ku dhaheen midka beertaada ka shaqeeya meeshan si qarsoodiyo ku soo maray kadib intuu soo baxo guriga daaqadaas ka galay weliba ana u jeedo albaabka qolkiisa intuu si tartiib u soo furo indhihiisa wuxuu ku arkaa weligiis arrin uusan sawiran waxay ku dhahmaagaysaa arrinta waa ka wada hadlaynaa isdeji laakiin wuxuu u sheegaa intuusan qarxin inay meesha isaga tagto wax yar kadib isagoo la yaaban arrintii uu indhihiisa ku arkaa midaan u imaanay waxay ku dhahaysaa aadan ugu xumahay arrintan haddii aan kuu sheegi lahayn sidaa maysan u dhici lahayn laakiin isagu wuxuu u sheegaa inay ku saxnayd inay u sheegto haddii aysan u sheegi lahayn ay arrintu sidaan ka weynaa lahayd xoogaa yar markii ay la sheekaysatay saaxiibkiin waa kana arrintii uu ka burugeysanaayo dhan wuu iloobay maalmo kadib waxaan aragnaa labadan markii ay meesha keligood ku noqdeen inay isku qabsadeen haddii aad maqashay hebel ma quusto waa midkaan oo kale wuxuu raadinaya ilaa waagii ay buundada iska tuuraysay markii uu arko wuxuu u sheegaya in la gaaray xilligii ay guriga dib ugu laaba lahaayeen oo ay isguursa lahaayeen laakiin iyadu isaga dhanba waa inkire waxayna u sheegaya inuu meeshan isaga tago kahor intaysan booliska u wicin ugu dambeyn waxa ogolaaday inuu meesha isaga tago labadooda inay meesha mugdiga ku gaadaan oo ka cabsada u maleeya ma xasuusateen laba laisla burinaya iyagoo laami dhisaayo waxay u muuqataa hadda kadib inuusan jirin qof ay ka dhowdhuuma doonaan ugu dambeynna muuqaalku intaasoo ku ekaaya hadda halkaas u garta leegnoosa